wafdi ballaadhan oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Gabilay ayaa soo gaaray degmada Arabsiyo ee gobolka Gabilay. Gudoomiyaha ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyay degmada Arabsiyo ee gobolka Gabilay. Intaa kadib gudoomiyaha ayaa u boqolay deegaanka dalxiiseedka Dhagaxkuure ee degmada Arabsiyo. Halkaasi oo gudoomiyaha degmadu xog ka siiyay ku saabsan deegaankan dalxiiseedka Dhagaxkuure ee degmada Arabsiyo. aad baan kugu soo dhaweynaa deegaan dalxiiseedka Dhagaxkuure degmada Arabsiyo gobolka Gabilay. waxaan ku leenahay ku soo dhawow deegaankan waa deegaanada dabiiciga ee Ansaarta Qadiimigaa ee Soomaaliland ay leedahay. marka la yiraahdo deegaanada sida laasgeel oo kale waxa weeyaan deegaano ay ku noolaan jireen qurumihii naga horeeyay ee dhulkan degana. deegaankan waxa uu leeyahay godad ay ka muuqdaan Ansaartii qadiimiga ahayd ee ama sawirraha noqdaan ama dhulkii aad garanaysay inay hooy ka dhigan jireen dadyoogii hore. deegaankani waxa weeyaan deegaan dalxiiseed ay toddobaad kasta dhamaadkiisa maalmaha Jimcaha ay u yimaadaan kumanaan gaari oo ka soo baxa dhinaca Gabilay iyo Boorama iyo dhinaca Maroodijeex ama Hargeysaba. dalkoo dhan waxay u yimaadaan deegaankan xilliyada ciidda iyo fasaxiyada iyo maalmaha Jimcaha dalxiis bay u yimaadaan. deegaankani waa degmada Arabsiyo gobolka Gabilay. aad baan kugu soo dhaweynaynaa maadaama uu yahay dhulkii aad maamuleysayna waxaanu jeclaysanay in kormeerkaaga aad aragtid wixii hawli u baahan yahay iyo wax qabadna diyaar baynu u noqon doonaa insha Allah inaynu gacanta sii saarno aad looga shaqeeyo si deegaan dalxiiseed aad loogu soo hirto. sidoo kale gudoomiyaha degmada Arabsiyo ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeedhay wasaaradda hawlaha gudbulka iyo guriyeynta Somaliland taasoo sheegtay in deegaankan uu ka tirsan yahay gobolka Maroodijeex. Dhagaxkuure asal ahaan waxa weeyaan degmada Arabsiyo gobolka Gabilay. Hortuugna ma hado ninka yiri deegaankani waa gobolka Maroodijeex waa ninaan goran habeen ahayn maalin ahayn hadlay. deegaankani waxa la yiraahdaa Dhagaxkuure degmada Arabsiyo ayaa waxay leedahay deegaan dalxiiseed u kala baxa laba qaybood. mid waa dooxyada iyo bustaanada, midna waxa weeyaan dhulkan dabiiciga ee uu Ilaahay sidan u dhigay Dhagaxkuure oo degmada Arabsiyo. xadka degmada Arabsiyana waa ka shishaysaa. xadka degmada Arabsiyana way ka shishaysaa halkan oo wuxuu weeyaan waliba in bay noo harsan. waxay noo dhaxeeyaa waxa weeyaan gobolka Maroodijeex dooxa uudaan baa dhinacan inooga dhaxeeya halkan laga gaarayo ilaa Butuji waxa weeyaan degmada Arabsiyo. marka ninka yiri waa nin habeen hadlay weey. waa Musa Xuseen Xasan telefishinka caalamiga ee RTV degmada Arabsiyo ee gobolka Gabilay.